habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena caawiya caalamka oo aan idin la socodsiin doonto anigoo ah Aisha Afrax qodobada wararkeena ugu waaweyn waxay kala yihiin ugu yaraan 162 qof ayaa ku dhintay dildilaac ka dhacay xarun macdan laga qodo dalka Myanmar warbixin dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa warar kale caalamkana waxa kamid ah xasilooni ayaa dib ugu soo noqotay magaalada Addis Ababa iyo magaalooyin kale ee dalkaasi Ethiopia iyadoo maalmihii u dambeeyay ay banaanbaxyo ka socdeen afkayga daloola ilkahayga dahabka mudan waxa iga daran wadankayga daaficiis iyadoo toddobaadkii xornimada uu soo afjarmayo waxaan eegi doonaa doorkii ay dumarka Soomaaliyeed ku soo qaateen halgankii xornimadoonka iyo halka ay maanta kaga jiraan siyaasadda toddobaadkan iyo teknoolajiyaddan waxaanu ku arki doonaa shaashad aad iska eegi kartid marka aad gurigaaga ku jimacsanaysid kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawiya caalamka dhulka ayaa go'ay goobo macdan laga qodo oo ku yaala waqooyiga dalka Myanmar halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 162 qof waxay dhinteen kadib markii dhagxaan dhoobo iyo biyo iswata ay ku soo gudoomeen dadkaasi oo ka qodanaya dhagxaan qaali ah dhulka buuraha leh ee gobolka Kachin booliska ayaa uga digay in dadkaasi ay halkaas ka shaqeeyaan kadib roobab xoog leh oo ka da'ayay Farxaan Maxamed Jamcaale ayaa warbixintan inoo haya roob ayaa qooyay buurihii oo dhan waxay ku soo dumeen dhulka macdanta laga qodo iyadoo daadadku ku qulqulayaan dooxadan hoose dadkii ayaa gabaad raadsanaya iyagoo ku qaylinaya ka baxa laakiin qaar badan kama aysan gaarin waxay tilmaamayaan dad ay biyuhu qaadeen wuxuu ku qaylinayaa mid kale ayaa hirku la tegay dhammaantood waa ay ku daayeen boqolaal kun ayaa saboolnimada ka jirta dalka ay biday macdanta inay qodaan si mar uun ay halkan taajir uga noqdaan dhagxaanta macdanta ah waxay u dhigmaan dahab macdan qodista waxaa muddo badan haystay shirkado si sharci darraha ugu xidhan militariga Myanmar ilaa ganacsato Shiina ah kooxo daroogada ka ganacsada iyo kuwa hubaysanba macdan qodayaal da' walba ah ayaa ku soo xooma qashinka ay ka tagaan shirkadaha waaweyn waxay ka shaqeeyaan kuna nool yihiin dhul burbursan oo aan ammaan ahayn oo ay og yihiin inuu ku soo dumi karo xilli kastana uu xabaali karo marka roobku qayoodo ayay bilaabi karaan inay soo saaraan dadkii ku aasmay halkan waa goob aad loo yaqaan sanadkii hore 2 jeer ayay ku dhinteen dad ka badan 70 qof laakiin markan waxay u muuqataa markii ugu darnayd dhulkan macdanta laga qodo waxay ahayd in la xiro inta lagu guda jiro xilligan qoyaanka laakiin sharciga sida looguma adko gobolkan ka tirsan Myanmar waa hagaag xaalad deganaansho ayaa ka jirta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia iyo qaybo kamid ah dalkaasi oo ay maalmihii la soo dhaafay ay ka taagnaayeen xasilooni darro ka dhalatay dilkii fanaan caan ahaa Hachalu Hundase oo isniintii la dilay dhinaca kale dawladda Ethiopia ayaa xirtay xafiiskii telefishin uu leeyahay Jawaar Maxamed oo kamid ah dhaqdhaqaaqayaasha qowmiyadda Oromada oo isaga iyo madax kale oo isku fikir yihiinba iminka xabsi ku jira haddaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ethiopia waxaa magaalada Hargeysa kala socday wariyaheena BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad Sidiiq soo dhawow maxaa u dambeeyay Aisha saad sheegtay magaalada Addis Ababa iyo waliba magaalooyin kale oo ka tirsan gobolka Oromada xaaladoodu maanta caadi ayay ku soo noqotay inkasta oo suuqyada ganacsigu ay si gaabisa ay u furmayaan ciidamada ammaanka ayaa iyagu waxay sii wadaan qabashada dadka iyagu ka careysan dilkii loo geystay fanaanka Hachalu Hunduse oo magaalada Addis Ababa maalintii Isniintii lagu dhex toogtay gaarigiisa dhinaca kale
ciidamada dawladda ayaa waxa ay dawladda Ethiopia laban telefishinka weyn oo MN iyada oo lagu soo eedeeyay in uu kicin iyo colaado ka dhaxayo ku salaysan isir iyo diin bulshada dhexdeeda ku socota laba telefishin oo iyaguna ku kala hadla afafka Tigreega iyo Amhariga iyadoo kuwaasina lagu haysto eedeyn lamida ta lagu haysto telefishinka oo MN xaaladdu mid degan ayay u muuqatay inkasta oo weli ay diil la jiro waxaana la dareemayaa shadihii ka dhashay maalmihii u dambeeyay dilkii fanaanka internetka ayaa sidoo kale isaguna qaybo badan oo wadanka ah weli ka go'an Sadiq Maxamed Burmad aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay koox siyaasiyiin hore iyo aqoon-yahano isugu jiro ayaa soo saaray bayaan ay u bixiyeen manifestadii labaad bayaankooda ayaa ku socda madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya waxaana bayaankan saxiixay ilaa iyo 70 qof waxayna manifestadooda ku sheegeen in dawladda federaalka ay ku guuldareysatay inay sameyso deganaansho iyo hay'adihii looga baahnaa inay abuuraan dawlad wanaag sidoo kale inay wax ka qabato musuqmaasuqa waxayna soo jeediyeen qodobo ay ka mid yihiin in dawladdu ay ku dhaqanto dastuurka iyo in la qabto doorasho aan waqtigeeda dib uga dhicin 30 sano ka hor ayaa la soo saaray sida ay sheegeen manifestadii koowaad iyadoo wax yar kadib dawladdii dhexe ee Soomaaliya ay markaa burburtay haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in la soo saaro bayaankan Caasho Geele Diiriye waxay ka mid tahay dadka saxiixay manifestadan qadka Skype-ka ayayna uga jirtaa magaalada Gaalkacyo soo dhawaaw Caasho Geele maxaa bayaankan aad manifestada ku magacawdeen aad waqtigan ugu soo beegteen 70kiinuma waxaad aaminsan tihiin in dalku uu ku jiro xaaladii uu taagnaa xilligii manifestadii koowaad ay soo baxday Caasho waa maadsan tahay dadka Soomaalida oo dhan oo daawanayaan waa salaamayaa walaal waxa laga yaabaa dadkaas tirada badan oo aqoon-yahanka oo dareenkaas inuu qofba dareen gaar ah qabo waxaan kamid ahay dadka Soomaaliyeed oo soo joogay xilliyadii muxuu ahaa dalku uu dawlad la'aanta ahaa xilliyadii dawladda ku meel gaarka ah dhalatay xilliyadii ku meel gaarnimada laga baxay waxaan kamid ahaa goodwill ambassadorskii runtii aad uga damqan jiray in wadanku uu qalalaasa siyaasadeed galo xilligan oo aad moodid inuu waqtiga aad u kooban yahay go'aamo degdeg ah muxuu ahaa baarlamaanka Soomaaliyeed ka soo baxayaan sidoo kale uu jira khilaaf aad moodid inuu baahsan yahay oo kala duwanaansho kala aragti duwanaansho runtii aniga Caasho ahaan waxa ay galay welwel badan oo ah in loo baahan yahay in kaalin dib heshiisiineed laga galo isku soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta inay isku soo dhawaadaan aragti midaysan ka qaataan dalka Soomaaliyeed meeshuu aadayana ay muxuu ahaayay ay wada wax ka wada tashadaan waa hagaag waxaad kaloo sheegteen in dawladda ay heshiis qarsoodi ah oo caalami ah ay gashay iyadoo baarlamaanku aanu ansixin maxaa kamid ah heshiisyadaasi cadeymo muu haysaan sida Caasho aan ku sheegay anigu Caasho ahaan waxaan ahaa kamid ahay goodwill ambassadorska Soomaaliya u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada kamid ah oo jecel inay Soomaaliya heshiis ay gaarto dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuba ay muxuu ahaa heshiis ay wax ku wada gaaraan wax la isku ogyahay wadanka lagu dhaqaajiyo runtii kuma oran karaan heshiisyo qarsoodi iyo kuwa muuqda midna ma dhihi karo laakiin anigu dareenkaygu waxa waaye inay jiraan kala duwanaansho aragtiyeed iyo iyada oo muxuu ahaa waqtigu yar yahay taasna ay u baahan tahay in dadka Soomaaliyeed oo dareenkooda leh ay u kacaan sidii guul looga gaari lahaa waad sheegtay in 70 qof ee saxiixay ay dana kala duwan iyo dareemo kala duwan ay leeyihiin laakiin dhamaantiin waad saxiixdeen Soomaaliya warqadan aad dawladda ku leedihiin waa inay qabataa doorashooyin xilligeeda aan ka dib dhicin iyo waxyaabahaas oo kale wal warqadu ma saxiixno horta laakiin waxa weeyaan dad aqoon-yahana siyaasiyiin ah muxuu ahaa ururada bulshada kamid ah oo muujiyay dareen ku saabsan in dalku muxuu ahaa uu ku soo noqon karo qalalaasa siyaasadeed haddii aan si degdeg ah aan dadkeeda ugu kicinin oo go'aan laga qaadanin kala duwanaanshaha Soomaalida dhexdeeda ka jira laakiin dadku meelaha kala duwan bay jiraan sidaan markii ugu horeysay sheegayna qofka dareen gaar ah waxaan baarsaya laakiin dareenkayga aniga goodwill ambassador ahaan waxa waaye in la helo Soomaali isku meel u jeeda heshiis ah
wixii ay qabanayaan ee meesha wadanka u socdana laga wada heshiiyo waqtiga yaroo jira iyo iyadoo sharciga la ilaalinayo. waa mahadsantahay. taasi waxay ahayd Caasho Geela Diiriye oo nagaga soo biirtay magaalada Gaalkacyo. markana waxaa inoo soo socda wararkii caalamka ee caawa. bangiga adduunka ayaa si rasmi ah ugu aqoonsaday Tanzania inay gashay dalalka dhaqaalahoodu meel dhexe yahay. ku dhawaaqistan ayaa ku saleysan dakhliga soo gala dadka dalkaasi oo u dhaxeeya 1,000 ilaa iyo 4,000 wax ka yar oo dollar bishii. dhaqaalaha Tanzania ayaa kordhayay 6.8 sanadkii tagay, kaasoo ka dhigaysa mid ka mid ah dhaqaalayaasha ugu kobaca badan dunida. mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa kooxaha dimuqraadiyad doonka ah ayaa ka cararay Hong Kong kadib markii ay dawladda Shiinaha meel marisay sharci ay kula wareegaysa dhammaan deegaanada Hong Kong. Nathan Law ayaa sheegay inuu dadaalkiisa ka sii wadi doono meel kale inkastuusan sheegin meeshaasi. Nathan ayaa hore isaga casilay koox siyaasadeed oo uu hoggaankeeda qayb ka ahaa. maxkamad Turkiga ku taala ayaa bilowday dhageysiga kiis ka dhan ah 20 qof oo aanan joogin. 20kan qof oo u dhashay dalka Sacuudi Carabiya ayaa lagu eedeeyay dilkii saxafi Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi oo dhaleeceyn jiray dhaxal sugaha Sacuudiga Amir Mohammed bin Salman ayaa lagu dhaxdilay qonsuliyadda Sacuudigu ku leedahay magaalada Istanbul 2 sano ka hor. haddii lagu helo eedeysanayaashan dambiga waxay wajihi doonaan xabsi daa'in ah, balse hanaankan ayaa xadidan maadaama aysan eedeysanayaashu joogin dalka Turkiga. wali waxaa inoo socdo qaybta dambe barnaamij ku daawan doontaan toddobaadkan iyo tiknoolajiyadda qadar yar oo nasasho ah dabadeed. wali waxaad daawanaysaan caawaya caalamka baladna xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweynaa. ugu yaraan 162 qof ayaa ku dhintay duldildilaac ka dhacay xarun macdanta laga qodo waqooyiga dalka Myanmar. xasilooni ayaa dib ugu soo noqotay magaalada Addis Ababa iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalka Itoobiya kadib dibadbaxyo dalkaasi maalmihii u dambeeyay ka socday.
waxaa sii dhamaanaya toddobaadkii lagu dabaaldegayay xornimada Soomaaliya iyadoo ay 60 sano ka soo wareegatay xilligii ay gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu ay baxeen. haddaba halganka gobonnimadoonka waxaa qayb weyn ka qaatay dumar Soomaaliyeed oo badi aanan taariikhda lagu xusin. doorka dumarka ee gobonnimadoonka ayaanu wax ka weydiinay Faadumo Hiiraad Qaylax Qalyax oo ahayd haweeneydii ugu horeysay ee saxaafadda Soomaalida ka howlgasha. Soomaaliyay toos isku tiirsada hadba kiina taag daran taageera weligiin. markii ugu horeysay horta gabadhii ugu horeysay baan ahay runtii oo raadiyaha furtay ama kaad. wuxuu ahaa 1955 aad baan u yaraa. wadaniyada raadiyaha laguma sheegi karin waayo raadiyaha gumaysi baa lahaa. waxaanuna ahayn gabdhihii ugu horeeyay oo ka heesa raadiyaha oo aanu dhib badan la kulanay oo calaamo badan loo soo qaatay oo maxay ahayd nalaha naage kama heesi karto ama kama hadli karto wadaadadu ay lahaayeen waliba tuuriyo naloo ku daray markaan raadiyaha sii gelayno nala tuuriyeynayo aanu barbaranayno meelo badan oo daqaro ah naloo geystay. Soomaalidu markaa wax dad isjecel bay ahaayeen dad xorriyadda aad u jecel bay ahaayeen hantidooda ayay ku fangarayn jireen shacbigu hadday lacag tahay hadday gacanta wax laga falkiyay ay tahay sida haweenku ay dambiilaha iyo gogasha iyo waxay falkiyaan markaas ay dib u gadi jireen oo leegada lagu fan looga dhig haweenku waa ku buraanburoon oo gabadhii dahabka furaysay waxay tiri afkayga daloola ilkahayga dahabka mudan waxa iga daran wadankayga daaficiisa. marka aad iyo aad bay gabdhuhu u jeclaayeen wadankooda una hurayeen markii ay lahayn gabar walba hadda ay buraanburkaas ku boodo markii buraanburada la ciyaarayo calanka Soomaaliyeed oo cirshiga ka nuur kuwii ku caawimi lahaa kama caajisaan annagu kugu cayshnay ilmahaagu kugu cayile cirkaad u eg tahay rabbiyow lagaa cabsado. waxay ahayd gabadhii tirisay Xaawo Jibriil. Soomaalida waxaan ku baraarujinayaa war wax tabca oo caruur wadaniina oo dhulkooda jecel tabca. haddaba waxaa qadka Skype-ka magaalada Nairobi kaga jirta Muno Diirshe oo ah qoraa u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka. Muno soo dhawaaw ayna ku bilownay BBC dabcan waad maqlaysay warbixinta BBC-da siisay Faadumo Hiiraad maxaad ku qiyaasi kartaa doorkii ay dumarka Soomaaliyeed ku lahaayeen gobonnimadoonka ka hor inta aanay saldhigan dawladnimadoodu? laay waxay ku lahaayeen door weyn oo aan la soo koobi karin sida ay u sheegtay in walaashay dad oo macna leh oo qiimo leh oo u diyaar ah inay wax qabsadaan en waxa moodaa inaysan noo suurtoobaynin en xorriyad iyo halgan en haween la'aantiisa oo aan u ahayn en lafdhabar iyo hiil iyo garab iyo wax walba. waad ogtahay badanaa marka caadifad hadal leh aan ku hadlayno waxaan dhahnaa dhulkii hooyo iyo afkii hooyo laakiin haddii aad eegto dumarkani sidii Xaawo Jibriil oo kale oo baraanburi jirtay Xaliimo Godane oo kale dumarkaasi maxaan taariikhda loogu xusin sidaan u xusno ragga sanad kasta markaan dabaaldegayno Xaawo taako baan maqli jiray aniga markaan soo korayay marka maxay kula tahay sababtaasi waan dumarka aad loogu xusin? waxay ila tahay annaka ka gaabinay ka dumar ahaan laano annaka la rabay inaan aan weyneyno oo aan meel weengeyno. hadda aniga ka Muno Diirshe waxaan qoray book oo la dhaho in haweenka Soomaaliyeed en shalay iyo maanta oo ahaa in haweenka Soomaaliyeed en shalay saan ahayn in baadiyihii iyo kartidii iyo dadnimadii iyo maanta oo aan helnay in warshado iyo aqoon iyo tacliin iyo ay aragnimo iyo horumar. waa sax marka aniga intii kraankayga waa sameeyay laakiin waxay ila tahay annaka ka dumar ahaan ka gaabinay.
وصح منا وحالي رهذا بدنا بربركي هوينك أيا الله بحصدي markii ay kameen dawladaha cusub maxaad ku qiimeyn kartaa doorka iyo matalaadda ee dumarku heleen doorka iyo matalaadda yani ay heleen oo hadda ah boqolkiiba 24 waxa moodaa in ay tahay wax aad noogu yar saasoo tahay waa loo dagaalamay waa loo halgamay waa loo haajiray ilaa ay carta ilaa ay ka hor ilaa iyo maanta loo dagaalamaya in la helo door sax ah oo jira marka waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan inay kuwaasi laga horleexiyo waxaa jira dhowr dhibaato oo tiro badan iyo maanta xataa waxay taagan tahay tii ugu darneed maadaama oo la dhahay waa la ansixiyey inay yeeshaan boqolkiiba 30 taas waxaa moodaa in uu yahay shirqool iyo dabin oo intii aan haysanay aan sii wayn doono marka hadii aan hadda 60 sano dhowr caqabadood oo tiro badan marka koowaad ma jiro reer iyo qabiil oo kursigooda oo loo asteyn doona yani ama ogolaan doona oo siinaya in ay yeeshaan dumarka oo kaliya marka aqliyadaha noocaas oo kale ah muna hadii aan ka dhex galo sidee loo bedeli karaa 60 sano ayaa ka soo wareegatay xilligan gobonimada qaadanay sidee loo hubin karaa 60ka sano ee kale soo socoto in dumarku aanay ka qadin doorka ay ku leeyihiin miiska lagu go'aaminayo mustaqbalka dalkooda iyo dadkoodaba waxa yani aan looga maarmaynin maadaama aan nahay udub dhaxaadkii iyo lafdhabarkii oo bulshada maadaama aan nahay dadka oo u dhaxeeya 18 sano ilaa iyo 65 dadka jira oo maanta oo u baahan yahay dalka haddii oo la gaaro 65 ilaa wixii oo ka koreeya waxaa noqonaysaa howlgab laakiin maanta waxaan haysanaa aqoon iyo aqli iyo xoog isagaa noo baahan dalka waa waajib aan ka mid noqonaa mahadsanid maanta diirsho ayay ahayd qoraan nagaga soo birtay magaalada Nairobi toddobaadkan iyo barnaamijkeena teknolojiyada ee Clegna waxaan ku arki doonaa waxa kamid ah teknolojiyadu sida ay noo caawinayso waqtigan lagu jiro xayiraadaha COVID-19 waxaana noo soo jeedin doona Cabdiraxmaan Bidaan shirkadda dharka yoogada samaysa ee Lululemon ayaa iibsatay shirkadda la yiraahdo Mirror oo ay siistay $500 milyan. shirkaddan ayaa samaysay iyadu shaashada gidaarka la sudho kuwaas oo ka dhigan sidii qofku joogo gymka lagu jimicsado madaxa Lululemon ayaa sheegay in dalabka qalabkan uu kacay intii lagu jiray xayiraadaha teknolojiyada ayaa safka hore kaga jirta dagaalka lagula jiro COVID-19 koox ka tirsan maxadka MIT ayaa soo saaray robot nadaafadda ka qayb qaadanaya waxa uu nadiifiyay meel cuntada lagu qaybiyo isagoo isticmaalaya shucaac MIT ayaa sheegay in robotku dhaqso wuxuu nadiifin karo isla markaana loo isticmaali karo iskuulada iyo dukaanada shirkadda sida tooska ah uga baxda internetka ee la yiraahdo Twitch ayaa joojisay bartii ku lahaa Trump kadib markii ay nacayb ku eedeeyeen barta kale caanka ah ee Reddit ayaa iyaguna mamnuucay bartii uu ku lahaa taageerayaashiisa ugu weyn halkaasi ee la yiraahdo subreddit waxa kale oo ay shirkaddani joojisay baro ay leeyihiin in ka badan 2,000 oo qof oo ay sheegeen inay xadgudbeen ugu dambeyntiina mid ka mid ah robotyada dadka u eg ee Hiroshi Isagura ayaa filin matalaya waa Erika waxaa lagu sameeyay jaamacadda Osaka ee Japan filin khiyaali sayniska ah ayay ka qayb qaadanaysaa Professor Isagura iyo Kiai ayaa Erika ku shubaya dhammaan xogta u baahan tahay si ay atreeshinimadeedu u meel marto waa dhabaadkii toddobaadkii xornimada aan ku soo gabagabeeyo cali maxamed bin cali uunsane oo marqaati ahaa markii calanka la surayay 60 sano ka hor haweenkaas aniga aadan u faraxsanaay
wana waxaan soo kiraastay baabuur la yidhaha 124 batanti waxaan qaatay 60kii ma sawiryahaydina maalintaas oo un sawirtay hadda xasuus ahaan gurigayga u yaalaan waxaana ka soo wareegtay 60 sano taasoo ilaahay mahadis leh haweenkaas bari maluulyada waxaa jiri suwixii waxaa la baxay banaanbax madaxweynaha khudba akhrinayay waxaa soo baxay kala armaato oo diblinti iskoolaadka jaamacooyinka hooyooyinka ciidamada dayaara buuweysi madaafiica la tuuray ciidamada meel kasto aad farxad weyn aa jiri haweenkii studentiga waxay aadayeen 8 saac barxadaas weyn oo laafintu barxad weyn 22 Oktoobar miyaa beelaas hadda waa laga soo degfar gadaashiisi ciidamada waxaa aan duul la keeni jiri waliba waxaan aad ugu farxay ilaahay u naxariista maxamed ibraahim cigaal markuu calanka keenay oo yiri walaalaanahay oo soo dhaweeyni mid ugu farxo oo weyn ay ahayd intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena mahadsanidin Thank you.